سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبيال ملكستو أجوكتان إيا وليبا سوال بو مقال كينا ويديسو غاريو كسو دوادا برنامج كينا عيارها او مانتا انديردا كساري دونو حقا سوقا كالا إيبسيغا عيارتويدا إيا ورغيسيادا وحا أي قرين ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe dhaho channelkeena adiga oo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya like saar muuqaalkan si uu u noqdo mid hela macaamiil badan oo daawata halkani waa Tolita Channel afar arrimood ayaa ka dhalan karta khilaafka xoogan ee waqti xaadirka kan ka dhaxeeya labada kooxood ee kala ah Barcelona iyo Atletico Madrid oo isku haysta saxiixa laacibka reer Faransa ee Antonio Griezmann qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa in gabi ahaanba uu burburayo wada xaajoodka baaxadda weyn ee Barcelona ay ku doonayso wiilka reer Faransa ee Antonio Griezmann madaxweynaha kooxda Barcelona ee Josep Mario ayaa wuxuu qirtay in madaxiisa fulinta ee kooxda Oscar in uu la kulmay dhigiisa Atletico Madrid ee Magual waxa ayna ka wada hadleen ololaha baaxadda weyn ee Barcelona ay ku doonayso Antonio Griezmann laakiin war saxaafadeed ay soo saartay Atletico Madrid ayaa waxa lagu cadeeyay in wada hadalladii ay ka yeesheen Atletico Madrid iyo Barcelona Antonio Griezmann uu noqday mid gabi ahaanba burburay arrinta labaad ee ka dhalatay khilaafka Barcelona iyo Atletico Madrid ayaa waxay noqotay in durbaba kooxda Atletico Madrid ay ku amartay Antonio Griezmann in isla axadda uu soo xaadiro tababarka buuxa ee kooxda ay isugu diyaarinayso kulamada ay ugu diyaar garoobayso xilli ciyaareedka cusub ee soo aadan qodobka saddexaadna wuxuu noqonayaa in kooxda Barcelona gabi ahaanba uu ka xirmay albaabadii kooxda Atletico Madrid ee ahayd doonista Antonio Griezmann kooxda Atletico Madrid ayaana doonaysa in lacagta lagu iibsanayo Antonio Griezmann in gabi ahaanba hal goor ay gacanta ku dhigto halka kooxda Barcelona ay ku fikirayso in lacagtaasi qayb ay u bixiso waana hal kale oo khilaaf xoogan uu ka soo kala dhaxgalay kooxaha Atletico Madrid iyo kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ee Barcelona qodobka ugu dambeeyana waxa uu noqonayaa Atletico Madrid oo waqti xaadirka kan diyaar u ah in xiriirada kubadda cagta ee qaaradda Yurub iyo kan adduunka in dacwo ay kaga gudbiso kooxda Barcelona oo waxay diyaar u tahay in kiis cusub ay ka furto dhacdada Antonio Griezmann Atletico Madrid iyagoo waliba u dacwoonaya xiriirka FIFA iyo midka UEFA taasi oo la micno ah in Barcelona si dhaqsi ah aysan ku heli karin Antonio Griezmann oo ay aad u doonayaan xaaladaasina waxay faa'iido u noqon kartaa sida wararka ay tilmaamayaan in kooxda Manchester United gabi ahaanba ay gacanta ku dhigto Antonio Griezmann oo bartilmaameed weyn u ahaa muddooyinkii ugu dambeeyay marka kana 24 saac ee ugu dambeeyay iyo heshiisyadii ka dhacay qaaradda Yurub oo kooxda kubadda cagta ee Chelsea waxay ku dhawaaqday in heshiis cusub ay ka saxiixatay xidigeeda da'da yar ee Loftus-Cheek oo kamid ah ciyaartooyda da'da yar ee ugu saameynta badan kooxda Palo 23 jirkan reer England ayaana kooxda Chelsea wuxuu qalinka ugu duugay heshiis uu ku joogayo kooxda ka dhisan galbeedka magaalada London 5 sano oo soo aadan Robin Loftus-Cheek oo ka hadlayay dareenkiisana waxa uu yiri aad ayaan ugu faraxsanahay inaan sii joogo kooxda Chelsea muddo dhan 5 sano oo kale waa meesha aan ku soo barbaaray waxaan rajaynayaa in aan halkan ka sii ciyaaro waqti dheer ayuu yiri Robin Loftus-Cheek sidoo kale kooxda Chelsea ayaa website-keeda rasmiga ah waxa ay ku shaacisay in weeraryahankeeda reer Spain ee Alvaro Morata in si joogto ah ugu biiray kooxda Atletico Madrid kadib markii xilli ciyaareed amaah ah uu ku qaatay kooxda Atletico Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain ee Madrid Alvaro Morata ayaa laba xilli ciyaareed waxa uu ku qaatay kooxda Chelsea waxa uuna u dhaliyay 24 gool kadib 72 kulan uu u saftay kooxda Palo qaab ciyaareedkii uu ku soo bandhigayna tan iyo markii uu yimid garoonka Stamford Bridge wuxuu ahaa mid aan sidaasi u qurux badnayn taasi oo sabab u noqotay in Alvaro Morata uu amaah ku aado Atletico Madrid halkaasi oo ugu dambeyntii si rasmi ah uga mid noqday
sidoo kale wararka waxa ay sheegayaan in kooxaha Atletico Madrid iyo Chelsea ay ku heshiiyeen in Alvaro Morata si joogto ah ugu biiri doono nadiga Atletico Madrid kowda bisha July 2020 isagoo xilli ciyaareedka soo aadanna hab amaah ah ugu ciyaari doona kooxda Atletico Madrid waa sida ay tilmaamayaan wararka qaar ee ka imaanaya cariga Ingiriiska. kooxda AC Milan ayaa faahfaahin ka bixisay heshiiska ay kula soo wareegtay laacibka kooxda Real Madrid ee Theo Hernandez. bayaan ay soo saartay kooxda AC Milan isla markaana lagu faahfaahinayay heshiiska ayaa waxa uu dhacayay sida tan. AC Milan waxay ku dhawaaqaysaa in heshiis ay kala gaadhay kooxda Real Madrid xuquuqda Theo Hernandez. difaaca garabka bidix ee reer Faransa ayaa kooxda ugu soo biiray heshiis joogto ah waxa uuna qalinka ku duugay qandaraas 5 sanadood ah oo ku eg 30 bisha June 2024. ciyaaryahankan waxa uu ku dhashay Marseille 6 bishii October sanadkii 1997 waxa uu ka soo baxay akademiyada Atletico Madrid waxa uuna safashadiisii ugu horeysay ee kooxda reer Spain uu ciyaaray sanadkii 2015. sidoo kale xilli ciyaareedkii ku xigay wuxuu Theo Hernandez uu amaah ugu dhaqaaqay kooxda Deportivo Alaves isagoo uu ciyaaray 34 kulan isla markaana u dhaliyay kooxdiisa 2 gool. xagaagii 2017 waxa uu saxiixay Real Madrid waxa uuna u saftay 23 kulan isagoo kula guuleystay koobka European Super Cup, Spanish Super Cup, Viva Club World Cup. sidoo kale wuxuu hal jeer la qaaday koobka dhagaweynaha Champions League. intii lagu guda jiray xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday ee 2018-2019 waxa uu ciyaaray 28 kulan kooxda Real Sociedad isaga oo u dhaliyay hal gool. xirfadiisa kubadda cagta guud ahaan waxay noqonaysaa inuu ciyaaray 69 kulan horyaalka La Liga Spain. 3 jeer ayuu ka soo muuqday Champions League halka 16 kulanna uu ciyaaray Copa del Rey halka hal kulan uu ka soo muuqday koobka Spanish Super Cup. Theo waa difaaca ugu da'da yar ee saftay ugu yaraan 50 kulan horyaalka La Liga Spain tan iyo xilli ciyaareedkii 2016-2017. tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa diyaar u ah waqti xaadirka kan in uu sida ugu dhaqsiyaha badan uu ku soo gabagabeeyo ololaha baaxadda weyn uu ku doonayo laacibka qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Manchester United ee Paul Pogba. Real Madrid ayaana lagu soo waramayaa inay diyaar u tahay in ay dardar geliso dalabka ay ku doonayaan laacibka u dhashay xulka qaranka Faransiiska ee Paul Pogba. waxaana ay doonayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kala soo wareegaan kooxda ku ciyaarta garoonka Old Trafford. sida laga soo xigtay warbixin cusub ay soo saartay jariirada Le Copy, Zinedine Zidane ayaa liiskiisa xidigaha uu ka doonayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda goor horeba waxa qayb ka ahaa Paul Pogba ilaa iyo haatanna waxa uu ku guuleystay liiska xidigaha uu ka doonayay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaygan Eden Hazard, Ferland iyo laacibka lagu magacaabo Luka Jovic. haatanna magaca kaliya ee u heray waa Paul Pogba. waxa uuna doonayaa macallin Zinedine Zidane ka hor inta aysan u duulin dalka Mareykanka kooxda Real Madrid maalinta Talaadada ah in ay ku guuleystaan saxiixa laacibka reer Faransa ee Paul Pogba oo kamida bartilmaameedyada ugu waaweyn ee sida weyn looga doonayo qaaradda Yurub xilli tartan adag ay kala kulmayaan kooxda iska haysata horyaalka Serie A Talyaaniga ee Juventus. ugu dambeyntii Cristiano Ronaldo oo kamida xidigaha ugu wanaagsan dunida kubadda cagta ayaa waxa uu sii saadaaliyay waxa uu sameyn karo xilli ciyaareedka soo aadan oo ay naga xigaan wax iska yar. Ronaldo oo hadlayayna waxa uu yiri hadafkayga mar waliba waa in aan ku guuleystaa koobab xilli ciyaareedka soo socdana waxaan isku dayi doonaa in aan ku guuleysto dhammaan tartamada oo dhan. taasi oo la micno ah in Cristiano Ronaldo oo haatan 34 jir ah inuu u sii afeefanayo in uu noqdo mar kale laacibka ugu wanaagsan dunida kubadda cagta iyo in uu noqdo mid ka talinayo koonka kan aynu joogno.